بسم الله الرحمن الرحيم. marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhammaan saaxiibada ku jira sida live-ka ah hadda ugu jira salaan gaar ah u dirayaa sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibada kale ee hadhow daawan doona iyaguna videogan ama barnaamijkan Facebook ee nooga baxaya iyagana waxaan salaan iyo mahadnaq u dirayaa dhalinyarada hayaan forum naadiga hayaan oo barnaamijkan soo qaban qaabiyay isku soo dubariday dadaal badanna geliyay in uu si qurux badan ku soo baxo marka kale inta salaanta kadib Ramadaan Kariim bil barakaysan oo khayr leh oo bishii soon ayaan ku jirnaa waxaan Ilaahay ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala inuu khayrkeeda iyo ajarkeeda uu ina siiyo uu naga dhigo Ilaahay kuwii dambigooda la dhaafay naartana lagu xoreeyay naxariis iyo ajar fiicanna la waafajiyay sidoo kale culayskan kale ee cudurkan COVID-19 adduunyada wareeriyay isagana inuu Ilaahay naga kor qaado kuwii ka badbaada oo hareer marana Ilaahay uu naga dhigo intaas kadib barnaamijka waxaan rajeynayaa in muuqaalka iyo codkuba inay iska fiicnaadaan waa barnaamij maadaama una xaafad iyo laga soo dhex duubayo marmar waa laga yaabaa farsamadu sidii la rabay inay noqon weydo marka taana inaad noogu cudur daartaan ayaan rajeynayaa barnaamijkeenan caawa uu soo qaban qaabiye hayaan forum iyo ustaad gaar ahaan ustaad Cabdiwahaab Axmed uu isku soo dubariday sida ogeysiiskaba aad ku aragteen waxaynu ku falanqeynaynaa ama aan ku soo bandhigaynaa af Soomaaliga iyo lahjadihiisa kala duwan markii aynu dhahno waxaan ka hadlaynaa af Soomaaliga iyo lahjadihiisa kala duwan horta guud ahaan inteena ku wada jirta hadda live-ka ugu jirta ama inta daawan doonta arrin aynu isla wada ognahay aynu wada naqaanaynu ka hadlaynaa marka waxay noqonaysaa inaan anigu ka hadlo waxaad og tahay ma kuu sheegaa haddana waxaa dhici karta ama dhacdaba oo jirta dadka dhegaysanaya dadka daawanaya ama daawan doona hadhow in meelaha qaarkood ay iga sii aqoon badan yihiin oo inta aan sheegayo ka badan ay ka sii garanayaan marka kaalinteedu aniga waxay noqon doontaa un xusuusin inaan isxusuusino wixii hore aan u wada naqaanay fursad ay u noqoto inaan isla wada xusuusano markaan soo bandhigo soo sheego qodobada xusuusinta kadib waxaan geli doonaa wixii su'aalo iyo faallaa aad ku daraysaan waxaan rajeynayaa marka inuu barnaamijkeenan qiyaasta saacad ku dhawaad inoo socon doonaa inuu noqdo mid aan ku kala wada faa'iidaysano qof kasta oo soo galayna uu kala baxo uu ka dhamaysto isaga oo wax ka faa'iiday ugu yaraan wax uu hore u yaqaanay la xusuusiyay wax cusubna loogu daray af Soomaaliga markaynu ka hadlayno horta magaca af waa luqad Soomaali marka magacaas wuxuu ka dhaxeeyaa saddex dadkan Soomaaliyeed ee dhulka geeska Afrika degan magacooda loo yaqaanaa Soomaali dhulka ay degan yihiinna waa dhulkii Soomaaliyeed afka ay ku hadlaanna waa af Soomaali marka halkaa markii la eego magaca Soomaali saddexdaaba way mutusinayaa af Soomaaligu dadka Soomaaliyeed ay ku hadlaan asal ahaan ay geeska Afrika degan yihiin qiyaastii intay yihiin tira koob weyn oo buuxa lagama hayo laakiin marka la isku daro wadamada kala duwan ay ku kala baahsan yihiin iyo qiyaasta waxa dhici karta 30 milyan iyo qiyaastii meelaha inay noqdaan waxa kale oo jira Soomaali badan oo qurbaha tagay oo degan oo qurba jooga waxa lagu qiyaasaa ilaa 2 milyan oo qof ama ay ku dhow yihiin ama ay yihiinba marka halkaa markii la eego waa tiro aad iyo aad u badan af Soomaaligu wuxuu ka mid yahay afafka loo yaqaano Kushitiga oo lagaga hadlo geeska Afrika afafka Kushitigu waa ilaa 29 af ayaa oo lagu hadlo hadda tirada dadka ku hadla aad bay u kala badan yihiin qaarkood waxa laga yaabaa ilaa 50 milyan ama ka badanba inay noqdaan ama ku dhadhow Oromada ugu badan dabcan qaarkoodna waxa laga yaabaa inay ku hadlaan dhowr boqol oo qof ama tiro noocaas oo kaleeta ah marka halkaa marka laga eego waxa weeyaan
meel ay ku hadlaan dhowr boqol oo qof ama dhowr kun oo qof ama 10 20 30 kun 100 kun ilaa 50 milyan inta u dhaxaysa afafkaas kushitiga waxaa laga hadlaa 7 dal markii laga soo bilaabo Suudaan Eritrea Djibouti Soomaaliya Ethiopia Kenya iyo Tanzania 7 dal bay 29 ka af ay ku kala firirsan yihiin Soomaaliya iyo Djibouti iyo Ethiopia saddexdaas dal iyo Eritrea ku dar tabcan Eritrea afaf kala soo raacaya saddexdaas dal baa ugu weyn Eritrea iyo Kenya ayaa marka dambe soo raacaya Suudaan iyo Tanzania af ama laba ayaa laga helaa marka iyagu ma badna marka dhinaca loo eego guud ahaan dadka kushitiga ah ee afafka kushitiga ku wada hadla afafka kushitiga la isku yiraahdo qiyaastii dadka ku hadla ilaa 100 milyan oo qof inay yihiin ayaa lagu qiyaasayaa waxa ugu badan Soomaalida waxa ugu badan Oromada waxa ugu badan Oromada waxa kaalinta labaad soo gala Soomaalida Soomaalida Oromada hadii la isku daro qiyaastii iyaga inta ugu badan noqonaya afaf kala duwan dabcan 29 ka af Soomaaliga oo kala dhow yihiin af Soomaaliga oo soo kala dhow yihiin afafka ugu soo dhow labada af ee ugu soo dhow af Soomaaliga waxa weeyaan afka aweeraha la yiraahdo iyo afka Rendiilaha la yiraahdo aweeraha waxa laga hadlaa gobolka Lamu Rendiiluhuna Soomaalida diris yihiin oo xagga dhinaca shayiguna sii xigaan labadooda afba aweeraha ama Rendiilaha qofku markuu ku hadlayo qofka Soomaaliga si caadi ah ayuu u fahmi karaa labada af ay aad isugu dhow yihiin dadka qaarkood waxay dhahdaan hadii ay jamhuuriyadda Soomaaliya xuduudeeda ay ku jiri lahaayeen waxa laga yaabaa in lagu sifayn lahaaba inay yihiin lahjad af Soomaaliga ayaa dhici karta Rendiilaha u soo dhow hadii waliba ay dad muslimiin si ahaan lahaayeen waxa dhici kari lahayd in af Soomaaliga in lagu sifayn lahaaba على كل حال أفكر سودو يهين وادين عاوة أويرا رنديلها بايسرة بس نجك يا أربارة أفكر كلي كسوحي مركا ورمضة عنفرتها يساسي كسي صعنيسا أفكر كاس مركا كشتك أبو أف صومالي وكمدي هاي سقالي لباتن كنا أين أمي مادنا أف صومالي وحولي اللهجة كلا الدول oo lagu hadlo oo dadka Soomaaliyeed ay ku hadlaan lahjadahaas kala duwan cilmi baaris ilaa heer bilow ah waa lagu sameeyay ina aad u sii faahfaahsanaanin cilmi baarisahaas waxa laga yaabaa ilaa 70 sano inay soo socdeen oo marba qof wax ku soo darayay laakiin lahjadahaas guud ahaan aan ku soo koobaynaa fikradda uu ka bixiyay muxuu ahaayay Professor Abdallah Mansour uu ku soo ururiyay daraasadihii iyo cilmi baarisihii kala duwanaa ee lagu sameeyay lahjadahaas kala duwan ee af Soomaaliga uu ka kooban yahay wuxuu ku soo ururiyay lahjadu way badan yihiin dabcan 20 ilaa 25 lahjadood hadii la doono waa la sii badin karaa ilaa dhowr iyo 50 lahjadood baa la sii gaarsiin karaa marka la leeyahay waa laba lahjadood xagee ka bilaabantaa waa arrin aan aad markiiba si sahal ah loo sheegi karin in sahamin badan oo xoog leh la sameeyo maahane wuxuu ku soo ururiyay marka Professor Abdallah Mansour koox lahjadiyo wuxuu bixiyay tiro lahjada ah baa isku koox ah afar qaybood baa ugu waaweyn oo ku soo ururinaynaa lahjadaha maxaa tiriga marka waa koox lahjada oo kala duwan waa kooxda labaad waa lahjadaha mayga kooxda saddexaadna waa lahjadaha digilka kooxda afraadna waa lahjadaha maadati ama asharaaf sida lagu magacaabo afartaas koox lahjadeeyo waxa ugu badan lahjadaha maxaatriga Soomaalida geeska Afrika degta inteeda deegaan ahaan marka la eego dhulka ugu ballaaran maxaatri bay ku hadlaan marka laga reebo labada webi ee Jubba iyo Shabeelle dhexdooda inta kale waxay ku hadlaan maxaatrigaas marka uu kala jeer duwanaanaya mararka qaarkood wax loo qaybiyo maxaatriga waqooyi iyo maxaatriga koonfureed muxuu ahaa farqiyo yar baa u dhaxaynaya laakiin guud ahaan saas la isku dhaafaa mayga
waa markii loo eego dhinaca ballaadhnaanta waa koox lahjeedyada labaad. Waxaa laga hadlaa shabeellaha hoose, baay, bakool, meelo ka mid a jubbada dhexe. Waxaa dhici karta marka inahaas waa meesha ugu muuqata. Iyaguna waxay sii kala leeyihin, way sii kala duwan yihin oo iyagana ma sii gelayno faahfaahintooda. nooca kale saddexaad waxa weeyaan waa koox lahjeedyada loo yaqaano lahjadaha digil. Lahjadaha digil waxaa ka mid ah afgarre ama afkarre. garru ayuu karre ay ugu dhawaaqaan, laakiin soomaalida kale iyoba garre oo ga ka dhiga. Afjiido, aftunni, afdabarre. Afartaasaa ugu muuqda. waxaa lasoo raaciyaa af oroole. orooluhu waa isla diinsoor, laakiin sida muuqata waxaa sii liqaya afdabarrihii. marka wuu sii yaraanaya, wuu kasii baxayaa. dadkii af oroole ku hadli lahaa waxay ku hadlaan afdabaraha. marka afgarre, jiido, tunni iyo dabarre afartaasaa ugu muuqda. markii lahjadaha digil loo bixiyey waxaa la raacay waa abtirsiintooda uun, ma aha in afartan lahjadood ay isaga dhow yihiin. muxuu ahaaye kuwa kaleeta ma aha, isagama dhowa. laakiin waxaa loo keenay un abtirsiin ahaan, maadaama ay ilmo aw digil isla yihiin, saasaa loogu magacaabay. kooxdaas lahjaduhuna way jiraan. kooxda kale afraad waa lahjada maadhati ama af ashraaf. deegaan ahaan ma ballaarna. waxaa looga hadlaa qaybo ka mida magaalada muqdisho, gaar ahaan xaafadda shangaani iyo magaalada marka. marka lahjadaha soomaaligana intaas ayaan ka sheegi karnaa. lahjadaha waan kusoo noqon doonaa bal waxa ka dhexeeya, laakiin waxaa kaloo jiro u baahan halkaa in la xusana mudan. afaf waxaa jira kale oon af soomaaliga ahayn oo ay ku hadlaan bulshooyin soomaaliyeed. waa arrintii beriga dhaweyd hadalka dhalisay ee afbarwaaniga, midda keentay in barnaamijkan aan qabanana qayb weyn ka ahayd. waxaa jira 3 af oo lagaga hadlo jubbada dhexe iyo jubbada hoose iyo shabeellaha hoose. 3daas af waa af barwaaniga, af baajuuniga iyo af mushunguliga. 3daas markii la eego ma aha lahjado af soomaaliga ka tirsan. dadka ku hadlaa waa bulshooyin soomaaliyeed. waxay kaga duwan yihiin dadka kale. iyagu waxay leeyihiin 2 af oo afkoodii hooye ah. mid waa af soomaali, midna waa afkooda gaarka ay ku hadlaan. markay bulshada kale ku dhex jiraan, markay fagaare joogaan, markii ay suuqyada iyo xafiisyada iyo meelaha kale ay ka adeeganayaan, af soomaali bay ku hadlaan. marka iyagu isla gaar noqdaana waxay ku hadlaan afkooda u gaarka ah. af barwaaniga waxaa laga hadlaa magaalada Baraawe. dadka barwaaniga la yidhaahda baana ku hadla oo aad wada garanaysaan. waa lahjad af sawaaxiliga ka tirsan. af baajuuniga waxaa lagaga hadlaa jasiiradaha iyo xeebaha magaalada Kismaayo ilaa iyo Mombasa inta laga gaarayo. waa qabiil weyn oo baajuun, xaggaana way degan yihiin, halkana way degan yihiin. af baajuuni baa la yidhaahdaa. isna waa lahjad kaleeto oo af ka tirsan sawaaxili. afka kaleeto waxa weeyaan waa af mushunguliga. waxaa lagaga hadlaa deegaanka gosha. beesha ballaaran ee mushunguli ayaa iyaduna ku hadasha. waa af gaar ah oo sawaaxiliga la simo. afafka barwaaniga iyo baajuuniga oo sawaaxiliga ka tirsan iyo mushunguliga waxaa la isku dhahdaa af baantu. halkii soomaaliga iyo canfarta iyo oromada iyo afafkaa kaleeto ay kushitig ay ka ahaayeen. luqadaha baantuuga la isku dhahdaa. marka bulshooyin soomaaliyeed oo 2 af leh, yacni 2 luqadood ku wada hadla isku mar. 2da luqadoodna waa 2 luqadood oo deegaankooda ay ka barteen oo nolosha ay bartay. waa afkoodii hooyo labaduba. marka afka hooyo la leeyahay waxaa loo jeedaa afka ilmuhu uu ku barbaaray oo qoyskiisa gurigooda uu ka dhex bartay ee uuna iskool u gelin. marka muxuu ahaaye 3daas afna way jiraan.
lahjadaha kala duwan ee af Soomaaliga iyo luqad kasta oo lahjada yeelata maxay ka dhigan yihiin markaynu leenahay waa lahjado ama waa afguri luqadda markii deegaanka lagaga hadlaa uu ballaadho waxaa kala duwanaanaya ereyadooda iyo farqi yar baa soo dhexgelaya ku kala duwan yihiin kala duwanaanshaha yar bay lahjadu kuu sheegaysaa wax kale maaha waxaad iska qiyaastaa laba qof oo walaalo ah oo guri wada degan midna uu jaamacad subaxii u kalaho midna tusaale ahaan uu u kalaho suuqa labadoodaas intay kala maqan yihiin ereyo kala duwan bay adeegsadaan labadoodaas marka muddo haddii habeenkii ayna isku soo noqon lahayn laba lahjadood bay kala yeelan lahayn erey bixinta jaamacadaha iyo waxbarashada lagu adeegsado oo dhalinyarada magaaladu ay taqaano waa u gaar laakiin suuqa iyo ereyada lagu adeegsadana waa ereyo kaleeto marka kala duwanaansho yar baa halkaa ka soo muuqda waxaad ka soo qiyaastaa marka dadkaasoo muddo kala maqnaa oo is arkaynin farqi baa halkaa ka abuurmi lahaa marka deegaanku markuu ballaaran yahay lahjado kala duwan baa abuurma habka dhaqan dhaqaale iyo hab nololeedka dadku markuu kala duwan yahay waxaa abuurmaya lahjadaha inay ku kala duwanaadaan tusaale ahaan xoolo raacatada beeraleyda dadka reer magaalka ah kalluumaysatada iyo wixii kale lasoo halmaala kala duwanaansho ayuu keenaya waxyaabaha kale kala duwanaanshaha keenaya marka muddo afkaas la soo adeegsanayo oo afkan isku af buu soo ahaa muddaa la soo adeegsaday 70 sano 100 sano waxaa soo baxaya farqi labada dhinac ee kala fog koonfurta shishe iyo waqooyiga shishe muddo ismay arag saa darteed farqi baa soo baxaya lahjada abuurmaya waxyaabaha kaleeta ee lahjadaha keena waxaa ka mid ah waxyaabaha juqraafiga ah tusaale ahaan dad deegaanka hadday buuri u dhaxayso buurta labadeeda dhinac laba lahjadood bay sida badan kala noqotaa waa isdhexgalkii ayay yaraynaysaa buurtaas waxaa la mida webiga labadiisa dhinac ama labadiisa daamood ama labadiisa jiin waxay kala yeelanayaan laba lahjadood haddaad u fiirsato magaalooyinka Soomaalida ee webigu dhex maro webiga labadiisa dhinac laba lahjadood oo dadka magaaladu ay yaqaanaan oo leeyihiin waxa ka timid dhankaas ayaa markiiba muuqanaya waxaa la mid ah badda marka bad iyo Soomaalidu ma kala xidho laakiin markuu dhulku ballaadho ama buuro yimaadaan ama webiyada aad u soo galay qodobka markii aan ka hadlayno lahjado u baahan in lagu baraarujiyo maskaxda ku hayno wax weeyaan marka aan leenahay lahjad luqad waxay ka kooban tahay lahjado kala duwan lahjaduhu inay kala fiican yihiin ama ay kala xun yihiin ma aha way siman yihiin luqaduhuba siday u siman yihiin adeegsigooda kala duwan oo kaliya luqad oo dhan waxa loo adeegsadaa in la isku afkarto marka lahjada markii mayga ah deegaanka marka la joogo tusaale ahaan bay ama bakool si fiican baa la isugu afkartaa ereyada ay u baahan yihiin ee deegaanka ku xeeran iyo shaqada ay qabtaana si fiican bay uga turjumaysaa lahjada maxaa tiriga ee lagaga hadlo deegaan kaleeto tusaale ahaan Gaarisa oo kaleeto iyaduna noloshooda way dhamaystiraysaa marka lahjaduhu way siman yihiin dhanka marka la eego mid walba waa in la isku afkarto ereyo ku tusinaya xirfadaha deegaanka laga adeegsado iyo ereyada deegaanka looga baahan yahay lahjad kastana leedahay marka lahjaduhu ma kala fiicna mana kala xuma way siman yihiin markii lahjad la yiraahdana looma jeedo wixii waa xaswaa lahjad luqadda kale ka hooseeya looma jeedo waxa weeyaan oo kaliya adeegsiga oo afka aynu ku magacaabi doona afka dhexe ama afka guud ee commonka ah iyo lahjadu farqiga u dhaxaynaya waxa weeyaan adigu waxaad ka soo qaadaa inaad ku dhalatay tusaale ahaan afgooy inaad ku dhalatay tusaale haddaan uga soo qaadno muqdisho aad joogtaa waxaad timid markaa meel guud oo dadka muqdisho jooga ay wada joogaan ama iskool ama suuq ama afka aad door bidayso inay aad ku hadasho ee dadka kale aad isku afgaranaysaan unba waxa lagu magacaabaa af dhexe wuxuu u dhaxeeyaa midkii ka yimid afgooyo iyo midka ka yimid balcad laakiin marka aad gurigiina ku noqoto oo dadkii aad afgooyo ku soo wada korteen ah afka aad si gaar ah ugula hadlayso ayaa waxa loo yaqaanaa lahjad ama afguri marka adiga adeegsigaagii unbaa kala duwan oo waxaad u aragtay kana faa'iido gaar uu ku leeyahay iyo macno gaar iyo dhadhan gaar ah oo dadka hoosaad kula hadlayso midna dadka kaleeta ee baahsan ayaad kula hadlaysaa marka lahjada iyo afka guud intaas kala duwayso wax weyn oo kale uma dhaxeeyaan qodob kaleeta u baahan iyadana marka lahjadeena
af Soomaaliga aynu ka hadlayno luqad kastana dabcan waa saas waa xeer guud lahjaduhu way isdhamaystirayaan loolan iyo cadaawad kama dhaxayso qofkii ereyada af Soomaaliga ah ee la adeegsado lahjaduhu way isku dhamaystiraan markii la doonayo marka in af Soomaaliga cilmi baadhis lagu sameeyo ama ereyadani meesha ay ka soo jeedeen iyo in dib loo raaco isirkoodii waxa lagu qasbanaanayaa in lahjadaha lagu wada noqdo laba erey baan tusaale inoogu soo qaadayaa ereyga waxa weyn waa ereyga horseed wuxuu ku jiraa lahjada maxaatiriga lahjada maygu ereyga horseed ma adeegsato ereyga horseed wuxuu ka kooban yahay laba erey hor iyo seed hor lahjada maxaatiriga waa lagu yaqaanaa laakiin seed haddii la rabo in macnaheeda la fahmo waa in loo laabtaa lahjadii mayga oo ah una ku tusinayo socodkii uu ku tusinayo markaasaa horseed waxay noqonaysaa midkii wax hor socday ee u horeeyay marka si ereyga horseed ee lahjada maxaatiriga ku jira aynu macnihiisa u fahamno labadaa erey oo uu ka kooban yahay hor iyo seed waxaan ku qasbanaanay inaan u noqono lahjadii mayga oo ereyga seed uu ku hadhay laakiin hadda aan maxaatiriga lagu adeegsan aan erey kale soo qaadano waa ereyga inan la yaal waa lahjada maygu si caadi u adeegsataa maxaatiriguna si caadi u adeegsadaan laba erey ku jira laakiin qofka maxaatiriga ku hadlaa ereyga inan la yaal uu fahmayaa inan la yaal waa wiilka markuu gabadh guursado gabadha cidoodii la dega oo masalan gurigoodii hadday magaalo tahayna magaalada gurigoodii la degan hadday baadi ahaydna meesha ay deganaayeen dhinacooda aqal kaleeto looga dhisay inantii marka waa gabar waa la yaqaan laakiin ereyga inan kuma jirto lahjada mayga kumana jirto lahjadaha digilka garaha qayb ka mid ah baa ereyga inan isticmaala hataa garo oo dhan ma isticmaalo marka lahjadaha maygana kuma jirto lahjadaha digilkana kuma jirto inan waxay ku jirtaa lahjadaha maxaatiriga ayay ku jirtaa haddana ereyga inan la yaal mayg waa lagu adeegsadaa si marka ereyga inan la yaal meeshuu ka soo jeeda aan u fahmno waxaan ku qasbanaanay oo qofkii mayga ku hadlayay uu fahmo wuxuu ku qasbanaaday inuu u laabto maxaatiriga marka maxaatiriga iyo mayga iyo lahjadahaas oo dhan waa lahjado isdhamaystiraya shariif saalax ilaahay u naxariista shariif saalax maxamed cali oo aqoon-yahan weyn oo af Soomaaligan cilmi baadhis ku sameeyay wuxuu ku tilmaamay lahjadaha af Soomaaligu inay la mid yihiin garaangir isdhamaystiraysa oo kaleeto garaangir wareegsan oo isdhamaystiraysa haddii qayb ka mida laga saaro garaangirtii ma imanayso marka oo qayb baa ka go'naanaysa marka taasna waa inaan lahjadaha sidaas ugu baraarugnaa oo ah inay isdhamaystirayaan loolan uusan ka dhaxaynin qodobka kaleeta aan jeclahay iyadana inaan isdul taagno oon isku baraarujino oon wax ka idhaahdo qodobka lahjadaha haddaan intaa uga baxo waxa weeyaan waa adeegsiga af Soomaaliga in badan waxaynu maqalnaa iyadoo la leeyahay dadka adeegsigooda iyadoo la dhaliilayo waxaynu maqalnaa iyadoo la leeyahay wuu liita af Soomaaligii lagu hadlayay marka haddana waxaynu ognahay afkeenii hooyo waqti ugu badan aynu ku hadalno waa isaga aad baynu u naqaanaa waynu isku afgaranaa marka meeshan dhaliishu ka jirto markii la guud la tilmaamayo waa xaggee waxa jira adeegsiga markii laga hadlayo afka iyo luqad kastaba wuxuu leeyahay wax loo yaqaano adeegsi xirfadaysan iyo hadal caadi ah hadalka caadiga waxa weeyaan waa hadalka caadiga aynu ku sheekaysanayno hadalka caadiga suuqa laba qof markay isku arkaan wax isku weydiiyaan dukaanka markaad wax ka iibsanaysid aad ku weydiinaysid waxyaabahaas oo dhan baa ah waa hadal caadi ah laakiin waxaa jira adeegsi xirfadaysan oo hadalka caadiga ah ka baxsan tusaale ahaan waxaa ka mid ah warbaahinta qofka wariyaha ah ee idaacad ka hadlaya ama joornaal wax ku qoraya ama TV ka hadlaya ama baraha bulshada ee iminka soo baxay ku hadlaya wuxuu la hadlayaa boqolaal ama kumanaan qof oo kala duwan wuxuu u baahan yahay marka adeegsigiisaas waa adeegsi xirfadaysan waa adeegsi xirfadda saxaafaddu ay soo gashay waxaa la mid ah macalinka ardayda iskuulka u dhigaya hadduu xisaab dhigayo iyo hadduu taariikh dhigayo iyo hadduu saynis dhigayo iyo hadduu maadadu doonaha dhigayo iyo hadduu suugaan dhigayaba isna waa adeegsi xirfadaysan oo ardaygu doonaya inuu xog u gudbiyo arday kala duwan ayuu doonaya inuu xog u gudbiyo waxaa la mid ah maamulka waraaqaha maamulku ay isu dirayaan maamulka lagu adeegsanayo oo uu xukun ka dhalan karo tusaale ahaan garsoor
muxuu ahaaye qolooyinka qareenadii abukaatayaasha oo qof u doodaya dadkii isdacweynayay garsooruhu hadalkiisii marka dambe maxkamaddu xukunkeedii ay qorayso marka ereyada lagu wada hadlayo xukun baa ka dhalanaya xuquuq lagu waayi karo xuquuq lagu heli karo qof loogu geysan karo ciqaab qof ciqaab lagaga badbaadin karo marka waa ereyo xirfadaysan oo macno gaara qayb ka mida ay leedahay waxaa la mid ah hal abuurka qofku markuu buug qorayo markuu maanso tirinayo iyo waxyaabihii la mid ah waxaa la mid ah muxuu ahaaye khudbadaha fagaaraha laga jeedinayo inahaasba waa adeegsiga xirfadaysan ee afka innaga markii adeegsigaa xirfadaysan iyo afkii kale caadiga ahaa laba qof markay iska hor yimaadaan ay wada hadlayaan labada qof ee iska hor yimid ee wada hadlaya afkoodu waa af caadiya wax u dhiman iyo wax ka dhiman iyo wax dhaliil aynu ku sheegnaa ma jirto labadaa qofba u dhexeeya wayna isfahmaan hadday isfahmi waayaanna markaasay isku baraarujiyaan laakiin meesha dhaliishu ay ka jirto markii la sheegayo waxa weeyaan qaybtaa adeegsigaa xirfadaysan meelaha kala duwan ama ha noqoto waxbarashada ama ha noqoto warbaahinta ama ha noqoto maamulka ama ha noqoto hal abuurka iyo qoraalkii buugta iyo maqaalada iyo waxyaabihii lamidka ahaa amaba ha noqoto khudbadaha fagaare lagaga hadlayo qofkaasi wuxuu la hadlayaa boqolaal qof kumanaan qof buu fariinta u gudbinayaa dadka uu fariinta u gudbinayaa lahjadaha kala duwan bay ku hadlaan deegaano kala duwan bay ku kala firirsan yihiin waxay u badan tahay hadalka uu qorayo ama uu jeedinayo waxaa la dhegaysan doonaa muddo kadib sanado kadib marka wuxuu u baahan yahay hadalkiisu inuu yahay hadal la tifaftiray la tayeeyey ereyada uu adeegsanayana ereyo xule inay yihiin ereyo la wada fahmi karana inay yihiin afgurigii hoose ee tuuladooda lagaga hadli jirayna uu ka yimid ereyo macnaha iyo dhumucdoodu ay isku miisaaman yihiin oo isku dheelitiran yihiin oo sidii labada qof ee tooska isu hortaagan markii wada hadlayeen oo kaleeto aan ahayn afkaasi marka meesha inaga waxa weeyaan afka caadiga hadalka caadiga lagu wada hadlo waxaa lagu bartaa qofku xaafaddu kasoo dhex bartaa ciyaalka xaafaddu ka bartaa bulshada barta uma baahna inuu iskuuliya wax u galo waayo waa afkiisii hooyo laakiin afkan xirfadaysan adeegsiga xirfadaysan ee afka markii loo yimaado qofka waa la baraa waana lagu tababaraa loogu talagalay iskuulladu inay baraan ama tababar gaara uu qaato iskuullada waxaa lagu dhigaa maado la yidhaahdo af soomaali maadadaasi waxay u bilaabantaa ardayga dugsiga hoose sanadka koowaad markuu yahay 12 sano ee dugsiga hoose dhexe sare ay dhiganayaanba waa loo dhigaa ujeedada ugu weyn maadadaas loogu talagalay manhajka ay ugu jirto toddobaadkii waxa laga yaabaa 2 saacadood 2 xiiso ama 3 xiiso ama mararka qaarkood xiisad inay ku soo ururto dugsiyada sare baa dhacda ujeedada loogu talagalay waxa weeyaan in adeegsiga xirfadaysan ee afka ay barto qof kasto iskuulkan dhiganaya af Soomaaligu waa afkiisii hooyo wuuna yaqaanaa waxa ka dhimanay la barayaa waa maxay waa adeegsiga xirfadaysan haddaynu u galno marka adeegsiga xirfadaysan iskuuladeenu marka loo eego kuma guuleysanin adeegsiga xirfadaysan in la baro saadarteed waxaan arkaynaa 12 sano qofkii maadada af Soomaaliga loo soo dhigayay qoraalkiisa haddaad akhrido inuuna tifaftirnayn aad ka soo saaraysid dhaliilo badan waayo lama soo tababarin fagaare markuu ka hadlayo hadduu iska hadlayo waxa laga yaabaa si fiican inuu khudbayn karo laakiin markuu doono inuu warqad ka akhriyo khudbadii uu soo qortay ee miisaanay inuu jajabiyo ereyadii inuu kiciyo sidii ardaygii dugsiga hoose dhiganayay oo kaleeta ah marka waxaa ka muuqata xirfadihii uu u baahnaa ardaygani ee qofkani ee loogu talagalay iskuulka in lagu soo siiyo ayaa yar dhaliishu ma aha dhaliil uu iskuulku leeyahay ama qofkan iskuulka ka bartay uu leeyahay ama macallinku uu leeyahay ma aha qof walbaba dhaliisha uu sixi kari lahaa laakiin dhaliisha markii diraasad aan sameeyay 2015 waxay muujinaysaa dhaliishu waxay ku jirtaa manhajka maadadaas manhajka sida loo dhigay manhajka markii luqad la barayo suugaan iyo af bay u qaybsantaa manhajka waxa xooga la saaray dhanka suugaanta dhankii afka xooga lama saarin wax way kaga jiraan laakiin waxba dhaliil bay leedahay dhankii suugaantana tix iyo tiraab bay u qaybsantahay tixdii baa xooga la saaray tiraabtii xooga lama saarin tixdiina inuu xafido gabayga ayaa xooga la saaray macnihiisa in aad loo baro looma barin ilmuhu markuu iskuulka ka baxaya marka 2 gabay buu sii xafiday imtixaankuu kaga gudbay dabadeed wax gaar ah oo uu suuqa la galo oo ka faa'iiday oo kale to weyn intooda badan ma jirto dabcan kuwa iskood isdhisaana way jiraan
marka laakiin dhaliisha xagga manhajka way ku jirtaa waxay u baahan tahay marka manhajkaas in dib loo eego in la xoojiyo midda la xidhiidha adeegsiga afka adeegsiga afka markii la joogo xirfadda adeegsiga dhinac afar qaybood oo waaweyn baa qof kastoo luqad baranaya laga baraa waa ku hadalka iyo dhegeysiga iyo qoraalka iyo akhriska qofka Soomaaliga afkiisii hooyo uu yahay dhegeysi uma baahna waayo maalintii oo dhan af Soomaaliga lagu hadlayo maqal laakiin af kale ajnabi markaynu baranayno waynu u baahanay sida Ingiriiska oo kale inaynu xil badan dhegeysano haddaynu af Carabi baranayno inaynu xil badan dhegeysano waynu u baahanay ta kaleetana waxa weyn ku hadalka qofka af Soomaaliga maadaama afkiisii hooyo yahay xirfadiisa ku hadalku way sareysaa laakiin luqad ajnabiya oo kaleeto afkiisa hooyo ahayn markuu baranayo xirfadiisa ku hadalka in aad sare loogu qaado u baahan tahay qof kasto inaga mid ah af Carabi ama af Ingiriisi wixii wax ku soo bartayba haddana ku hadalku uu ku culus yahay labada xirfadood ee u baahan in aad sare loogu qaado markii iskuuladeenu ay ardayda maadada af Soomaaliga la barayo waxa weeyaan midda qoraalka ah iyo midda akhriska ah af Soomaali qorana waa inuu si fiican u akhriyi karaa isaguna waa inuu af Soomaali sax ah u qori karaa oo tifaftiran waa inuu qori karaa tifaftirkaas waa muhiim luqad ajnabi markii la baranayo waa wax kale laakiin luqadda afka hooyo markii la baranayo labada qaybood in xoog laga saaro marka dhinaca manhajka waa qaybta iyadoo labada xirfadood u baahan in xoog laga saaro ee ku saabsan akhriska iyo qoraalka dhaliisha kale waxay ka jirtaa dhinaca ku saabsan macalinka looma tababarin inuu afka hooyo uu dadka baro macalinka xisaabta dhiga waa loo tababaray macalinka tusaale ahaan taariikhda dhiga waa macalin taariikh soo bartay waa macalin kulliyadda waxbarashada ama kulliyadda tarbiya ka soo baxay oo loogu talagalay inuu qof wax baro laakiin af Soomaaliga qof suugaan jecel baa loo dhiibaa sida saxdiina waxa weeyaan in qof la soo baray af Soomaali inuu dad sii baro sababtoo ah qof kastoo Ingiriisi af Ingiriis ma dhigo waa inuu maadada Ingiriiska soo dadka u bari lahaa uu bartay qof kastoo af Carabi afkiisa hooyayna af Carabi ma dhigo waa inuu bartay sidoo afkan uu dad kale u sii bari lahaa waliba markii dad kale la barayo waxa loo kala qaybiyaa laba qaybood oo waaweyn dadkii afka hooyo ay luqadani u tahay hab loo baray leedahay oo waayo wax badan iyagaaba yaqaan laakiin meelaha ka dhimanaya yaryar aynu tilmaamnay oo ah adeegsiga xirfadaysan bay u baahan tahay in laga dhiso qofkii afkii hooyo ayna ahayna waxay u baahan tahay isna in dhinacyo kale laga dhiso tusaale ahaan qofka iskuulka dhiganaya ee Soomaaliga markuu af Soomaali iskuulka dugsiga dhexe ama dugsiga sare loogu dhigayo maadada af Soomaaliga iyo maadada Ingiriisiga iyo maadada Carabiga si hab kala duwan baa la raacaya oo maadada Carabiga Ingiriisku isku hab ay raacayaan oo waa afkiisii hooyo ahayn maadada af Soomaaliguna habkii qofka afkiisa hooyo ee loo sii kordhin lahaa ayaa lagu baraya marka taasna waa mid ku dheeraan maayo waxa kaloo ka maqan agabkii oo macalinka buug baa la siiyey buugaas oon diyaarin badan lagu sameynin markii la eego muddadii lasoo dhaafay dabcan aan ognahay xaaladii ku jirnay horumarkii u baahnaana muuqaado marka si arrintaa loo saxo waxay u baahan tahay in manhajka la habeeyo mid baahida ka turjumaya laga dhigo macalinka la tababaro haddii xataa degree uuna soo qaadanaynin tababaro yaryar la siiyo intay shaqada ay ku jiraan tan kaleetana waxa weeyaan agabka loo baahan yahay maadada waa in aan buugga text buugga muqarrar keliya ta lagu ekaan waa inay jiraan buugaa kaleeto oo qofku uu sii akhristo iyo waxyaabo la mid ah taasna waa midda ku saabsan adeegsiga luqadda adeegsigan caadiga ka baxsan innaga markii la eego af Soomaaliga aynu ka hadlayno wuxuu soo jiraa 80kii sano u dambeeyay ee nolosheena waxa ugu soo horeeyay warbaahinta idaacadaha ee af Soomaaliga ku hadla waxa la soo bilaabay bilowgii 40-aadkii 1940-aadkii 70 iyo 9 sano ka hor qiyaastii waxa ugu horeeyay radio Hargeysa waxa kaloo ku xigay radio Muqdisho waxa ku soo xigay radio Qaahira waxa ku soo xigay BBC-da saasii ku socdeen marka idaacadaha hadda aad u naqaan marka iyaga marka adeegsiga xirfadaysan ee saxaafadda soo kordhiyay markii af Soomaaliga si rasmi loo qoray 1972 waxbarashada iyo maamulka iyo hal abuurka iyo dhinacaas iyadana aad u soo dalay markan way sii xoojisay marka taasna marka waxa weyn muuqaalku maanunba iga go'ay talo mise waa ujeedaan marka taasna waxa weyn waa adeegsiga xirfadaysan afka
aan ka baxno adeegsiga xirfadaysan ee afka aan inta uga baxno su'aalaha idinkaan idin siinayaa intaanan su'aalaha idin siinin markaynu af soomaaliga ka hadlayno qodobka kaleeto ugu dambeyn nahay inaan isku baraarujino af soomaaliga markaynu sheegayno loolama jeedo in afafkii kaleeto ee la adeegsanayay in lala diriro ama ay meesha ka baxaan innagu markaynu soomaalinahay tusaale ahaan waxaynu adeegsanaa af soomaali waxaa kalooynu adeegsanaa af carabi oo afkii labaad ah waxaa kalooynu adeegsanaa af ingiriisi waxay u baahan tahay marka halkaa meelo af soomaaliga uga baahannahay jirta meelo aan af carabiga uga baahannahay jirta meelo aan uga baahannahay af ingiriisiguna way jiraan marka waxay u baahan yihiin in aan kaalimaha kala duwanan afafka aan ku adeegsanayno inaynu isku dheeli tirno sidaynu ugu kala baahannahayna ay u noqdaan tusaale ahaan tacliinta hoose dugsiga hoose dhexe cilmi ahaan baadhista la sameeyey in afkooda hooyo carruurta loogu dhigo ayay tayada waxbarashadu ku jirtaa marka halkan waxay noqonaysaa af soomaaliga inaan dugsiyada hoose dhexe 8 sano u horreysay inaan ku adeegsano baahideenna halkaas taasaa ka turjumaysa marka heerka jaamacadeed la gaadho baahida cilmigu waxay keenaysaa inaan af ingiriisi ama af carabi aan ku baranno takhasusaatka kala duwanaya siday yihiinba sababtoo ah waa luqado caalamiya waxay leeyihiin maraajic iyo buwaag badan iyo oo wax dib loogu noqon karo oo qofkii jaamacadda uu sii akhrisan karo waa kaalin marka loo eego af soomaaliga uuna buuxin karin sababtoo ah lama gelin buugaag qofkii jaamacadda dhiganay waa inuu buugaag u akhristo marka tusaale ahaan taasaan usoo qaadanay waxaa la mida marka idaacadaha marka ka baxayaan af soomaaliga ku hadlaa waa caadi marka waxay u baahan tahay marka inaan isku dheeli tirno oo la eego meelaha kala duwan sida loogu adeegsanayo aysan ahayn in luqad gaara meel laga saaro ama luqad gaara meel lagu riixo laakiin luqadahan aan adeegsanayno see loogu adeegsanayaa af soomaaliga meesha ku habboonaa waa inaan ku adeegsanaa af carabigana meesha ku habboonaa waa inaan ku adeegsanaa ingiriisigana meeshii aan uga baahnayn waa inaan ku adeegsanaa innagaa u wada baahan midkoodna meesha lagama tuurayo hadda markii loo eego marka waxaa muuqata siyaasado jaangoynayo weyn inay maqan yihiin sidaa darteed meelo af soomaaliga looga baahnaa inay iska maqan yihiin sida tacliinta hoose oo kaleeto waxaa kamid aad arkaysaa dukaan yar oo xaafad dhexdeed ku yaalla oo waxyaabihii uu qoraya af ingiriisi ku qoraya dadka meesha jooga ka iibsanayana af soomaaliga akhri yaqaanaan ama in kamid a xataa af soomaaliga uma akhri yaqaanaan ingiriisna warkiisaba iska da marka yuu u qorayaa ma taqaan in airportka af ingiriisi iyo af carabi lagu qoro la yaab ma leh laakiin in xaafadda dhexdooda af ingiriisi loogu qoro oo aan lagu qorin af soomaali waa arrin la yaab leh noqonaysa sababtoo ah baahidii kama turjumayso baahida dukaankaas uu qabay waa inuu af soomaali ku qorto laakiin airportka waa in luqadda caalamiga la fahmi karaya lagu qoro tusaale ahaan marka waa in adeegsi isdhammaystiraya oo baahideena ka turjumaya luqaduhu ay noqdaan oo isku miisaaman ee ayna noqon midna kaalinteedii in meesha laga tuuro marka taas inta waxaan kusoo gabagabayn lahaa midii aan af soomaaliga iyo luqadaha kushitika si uga tirsan yahay iyo lahjadihiisa kala duwan siday isu yihiin iyo waxay kala yihiin iyo waxay isu yihiin labadaba luqadaha gaarka ah ee aan af soomaaliga ahayn ee bulshooyin soomaaliyeed ay ku hadlaan barwaani iyo baajuuni iyo mushunguli iyo midda kaleeto oo ah adeegsiga loo baahan yahay in adeegsiga xirfadaysan ee af soomaaliga oo u baahan in la kobciyo la tayeeyo sare loo qaado iskuullada markii lagu barayo iyo tababaro intaba kaalintaas ay qaataan iyo ugu dambeyn markii af soomaaliga iyo afafka kale aynu ka hadlayno waa arrin inoo wada furan aan u wada baahannahay aan wada adeegsanayno laakiin kaalimahaan ku adeegsanayno mid walbaba midka baahideena ka turjumaya iyo meeshu ku habboon yahay inaan ku adeegsano inagoo baahideena mar walbaba eegayna marka siyaasadihii jaangoynaya way maqan yihiin laakiin haddana ilaa heer wuxuun baa jira marka aad iyo aadna waad u mahadsantihiin qaybta kale waqtiga waxaan u reebayaa su-aalaha aad soo jeedinaysaan dhegeysiga dulqaadkan aad waad u mahadsantihiin soo dhowaada su-aalahana cabdiwahaab iyo tiimkii kale si usoo gudbiyaan baan arkeen waa mahadsantihiin
waay su-aasha ugu horeysa saaxiibkeen uu soo jeediyey waa midda ku saabsan barwaanigu xaggee u ka yimid af barwaanigu ma Portugiis ba maya Portugiis maaha Yurubna kama imanin barwaanigu af barwaani ama af muwiini waa lahjad ka tirsan af Sawaaxiliga af Sawaaxiligu waa luqadaha lagaga hadla xeebaha bariga Afrika ee badweynta Hindiya qaybsan ka soo bilow ilaa markii muxuu ahaaye ama Baraawe ka bilow ama Muqdishoba ka soo bilow dabcan berigii hore way isku xidhnaayeen maamul ahaan ilaa laga gaarayo Mozambique marka lahjada waxaa abuurmay lahjada halkaa dadka xeebeedka halkaa degan oo dad ahaana isdhex gala afafkay ku hadlaan waa af Sawaaxili waana lahjado kala duwan marka af barwaanigu wuxuu ka mid yahay lahjadaha af Sawaaxiliga ah ma aha af Portugiis Yurubna kama iman laakiin waa lahjadaha af Sawaaxiliga ah marka Sawaaxiligu deegaanada markii loo tago xeebaha badweynta Hindiya ama Baraawe ama Kismaayo waxa ka sii sheeyaba uu ku badnaan jiray laakiin intii dambe markii af Soomaaliga adeegsigiisu uu xoogeystay warbaahintu ay xoogeysatay xuduudda Soomaaliya Kenya u dhaxaysa ay dhex gashay yu sii dhimay markaas waxay noqotay in dadka ay laba af ku wada hadlaan oo af Soomaali iyo af barwaani af Soomaali iyo af mushunguli af Soomaali iyo marka af baajuuni marka waa af barwaanigu yaanu ku dheeraanay waa lahjad Sawaaxiliga ka tirsan dhulka sii joogi jirtay ma aha lahjad Portugiis iyo muxuu ahaa Yurub ka timid ma aqaan sheekada meesha laga keenay ma garanayo taas waa intaas su-aasha kaleeto waxay leedahay lahjadaha mayga ah sida beryahan loo qoro muxuu ahaayey waxbaa ku jira soo maaha waa su-aasha uu xasan soo weydiiyey lahjada mayga ah dabcan lahjadaha mayga lahjad mayga waa lahjadaha mayga af mayga qoraalkooda ilaa yani dadaallo waxaa jira la sameeyey dadaaladaas la sameeyey waxay u badan yihiin dadaallo ay dad sameeyeen afraad kala duwan oo meelo kala duwan kala jooga ayaa waxay isku dayeen inay sameeyeen inay sameeyaan oo ay u sameeyaan waxyaabo baahidooda ka turjumaya tusaale ahaan markii lahjadaha maxaatriga lagu hadlayo iyo lahjadaha mayga waxaa jira codad lahjadaha maygu ay la dheer yihiin oo aan ku jirin codadka lahjadaha maxaatriga markii laga hadlayo oo af Soomaaliga rasmiga qoran ah lahjadihiisu ereyadiisu ama codadkiisu alfabeetadiisu waxa weeyaan 22 shibana ah iyo 10 shaqal 22 shibana ah waa 22 markuu ilmuhu iskoolka tago la baro iyo hamzada waa 22 kaas iyo 10 shaqal 5 gaaban iyo 5 dheer shibanayaal dheeraad ah ayaa soo gelaya marka iyo shaqalada wax dheeraad ah soo gelaya mayga marka kuwaas in codad loo sameeyo ay u baahan yihiin dadaalada la sameeyay laakiin dadaaladaasi aad isugu dubaridna laba qaybood bay u qaybsan yihiin ilaa hadda qaarkood waxaad arkaysaa in si miisaaman ay isku dayaan inay ereyada u qoraan qaarkood waxaad arkaysaa in codadka ay qoreen inay badiyeen oo ay ku keenayso dadkii culays marka si guud aan usoo koobo lahjada mayga qoraalkeeda dadaal baa la geliyey laakiin wuxuu u baahan yahay jaangoyn rasmi ah oo la isla qaato oo in la fadhiisiyo oo si hadhow taas loo wada adeegsado marka dadaalkaasi qaybtaas uu ka maqan yahay laakiin dadaal fiican oo wax la kala xulan karo intaan la go'aaminin ah ayaa la geliyey dadkii sameeyeyna way ku mahadsan yihiin inta ugu badanna dadaalkaasi wuxuu dhacay markii dowladdii dhexe Soomaaliya ay burburtay 90-aadkii kadib marka waxaa laga yaabaa dadka sameeyna in badan oo ka mid ah ayna meel wada joogin su-aasha kaleeto waxay leedahay xiriir dadaa waxay u isticmaalaan muxuu yiri xiriir erigaa ma fahmin su-aashaas ima cadda xiriir ma ka dhexeeya af Soomaaliga iyo afafka faraacinada waa su'aal kale oo cilmi ah waxaa jira afaf guud oo la isku yiraahdo afafka Afro-Asiatic
afafka afro-asiyaatiga waa afaf lagaga hadlo qaaradda aasiya gaar ahaan dhinaceeda galbeed iyo dhinaceeda koonfureed iyo qaaradda africa dhinaceeda waqooyi iyo dhinaceeda bari waa intaas ishaysata weeyaan afafkaas afro-asiyaatiga loo yaqaano waxaa ka mid a afafka loo yaqaan alluqaat saamiya ama semitic languages waxaa ka mid a af carabiga af amxaariga iyo afaf kaleeto waxaa kaloo ka mid ah marka waa qayb ilaa waxay u qaybsamaan dhowr qaybood waxaa kaloo ka mid ah afafka kushitiga waxaa kaloo ka mid ah afkii faraacinada hore ay ku hadli jireen luqadda qibtiga loo yaqaano waxaa ka mid ah luqado kaloo omotic language loo yaqaano marka waa luqooyin noocaas ah luqaad marka luqadaha kushitiga iyo luqadda qibtiga ah masaarida hore ay ku hadli jireen kushitiga iyo waxa walaala ah qibtiga waxaa la isku yidhaahdaa muxuu ahaaye afro-asiatic baa la isku yidhaahdaa marka halkaa xiriir baa ka dhexeeya afafkii faraacinadii hore iyo soomaalida af soomaaliga oo waa afafka kushitiga iyo afka masaaridii hore faraacinadii oran waayo xataa faraacinadii kadib ilaa iminkaa lagu ay ku jiraan duquustooda diiniga ah iyobay ku adeegsadaan wuxuu ku hadhay masaarida masiixiga ah buu ku hadla ayuu ku hadhay oo uu yahay duquusta diiniga ah af isagoo nool lagu wada hadlo maaha marka afkaas waa xiriirkaasaa ka dhexeeya dabcan afafka guud ee afro-asiatic oo dhan ba xiriir baa ka dhexeeya oo tusaale ahaan carabiga iyo soomaaliga marka loo tago xiriirka isirkaa ka dhexeeya xiriir kaleeto wuu jiraayo markii soomaalidu ay diinta islaamka iyadoona xiriirkaa way sii xoojisay iyo qodobo kale dabcan laakiin afkaa guud masaarida hore ay ku hadli jireen iyo af soomaaliga xiriirka ka dhexeeya waa midkaas waxaana la isku yidhaahdaa afafka uu ka mid yahay af soomaaliga kushitiga iyo afka masaaridii hore iyo afafka saamiga ah iyo luqado kale ayaa waxaa la isku yidhaahdaa afafka afro-asiatic waana luqadaha looga hadlo qaaradda aasiya galbeedkeeda iyo koonfurteeda iyo qaaradda africa berigeeda iyo waqooyigeeda waa meel labada qaaradood oo iska soo horjeeda weyn meeshaas taasna waa intaas afafka aweeraha iyo rendhiilaha علي حاجبه أحمد علي حاجبه سويتي أويرها يرنديلو طبعا وحوينهم كشة ما قرنايو وايو وحنا نري أف الصومالي جمرك اللي تشوف أفك أقدو وأفك أويرنا والد هذا بوني نوالد هذا أويرا أما بوني ضدك كهاد لنا أويرا والد هذا بوني نوالد هذا وحيد كنان جرين كيمها كسمايو كبلو إلى يقبل كلامون ويسي كذين وهذا لنا على الصومالي ذا كسي بحين waxay jiraan dhinaca laamu bay degan yihiin marka dadkaas ku hadla qofka aweeraha ee hadlaya qofka Soomaaliga ee markuu dhageysto si caadi ayuu fahmi karaa marka waa dad yar gaagaaban Soomaalida ka yar gaaban marka dadka aweera la yiraahdaa ama boonina waa la yiraahdaa afkoodana aweera la yiraahdaa ama boonina waa la yiraahdaa marka dadkaas ku hadla rendhiilaha ayagu waa dad kale oo dhinacan kore jira oo iyagu xagga xeebta sii jirin rendhiila la yiraahdaa sheekooyinka qaar qofka rendhiilaha ku hadlaya tusaale ahaan si caadi qofka maxaa af Soomaaliga maxaa tiriga qofka ku hadlaa rendhiilaha wuxuu u fahmi karaa si ka fudud lahjada mayga qofka ku hadlaya rendhiilaha qofka maxaa tiriga ku hadlaa si sahal uu rendhiilaha u fahmi karaa oo ka fudud kan mayga ka fudud lahjada mayga ka fudud sheekooyin baa jira taas cilmi baaris badan bay isaga baahan tahay Soomaalida iyo rendhiilaha xiriir inuu ka dhaxeeyay wararka qaar waxay leeyihiin rendhiiluhu waa dad Soomaali isir ahaan jiray laakiin maadaama diinta islaamka ay ka tageen go'doonna ay galeen sidaas diinta gaar u noqday dadka qaarkood markay kasii sheekeynayaan waxaa la tilmaamaa inay jufo gaar oo beelo gaara kasii tirsan ay sii ahaayeen arrintaas marka waa arrin baaris badan iyo usii baahan hadda waxba yeemaan usii gelin laakiin rendhiilaha iyo aweeruhu waa kaas marka waa afaf gaar u taagan af qofka maxaa tiriga ku hadlaana uu si caadi u fahmayo labaduba Kenya ay ku jiraan labadaba dabcan waa xiriidha ay la leeyihiin dadka Soomaalida laakiin waxaan iska muuqataa
soomaalida dadkii ay xiriirka la lahaayeen xiriirka soo jireenka ah ee aanaysanayay soomaalida inayna soomaalidu dhinacaas ayna ku fiicnayn waayo berigii dhexaas ahaydna inuu yani waxay ku noqotay yani soomaalidu ma raadsato iyadayna ahayd inay dadkaa raadsato marka waana afaf isle taban marka aweeraha iyo rendiilaha midaasaan kaga baxaya su-aasha kale waxay leedahay isticmaalka af soomaaliga hagaagsani beryahan wuu sii yaraanayaa maxaa sabab u ah sideese loogu boorin karaa in dadkaa isticmaala inay isticmaalkoodaas tageeyaan horta ereyga ma adeegsadeen af soomaaliga hagaagsan laakiin waxaan adeegsan lahaa ereyga af soomaaliga xirfadaysan oo tusaale ahaan labada qof ee wada hadlaya afkay ku wada hadlayaan wuu hagaagsan yahay waa iyagaaba iskale haddayba ku wada hadlayaan wuu hagaagsan yahay laakiin markay fagaare yimaadaan adeegsigii xirfadaysnaa ma aha ee ku habboonaa marka luqadii xirfadaysnayd ama luqadii guud ahayd waa saan tilmaamay baahida adeegsigaas xirfadaysan baa sii kordhaysa tusaale ahaan haddaynu soo qaadano 80 sano ka hor adeegsiga xirfadaysan umaynaan baahnayn afkaynu ku wada hadli jirnay labada qof ee wada hadlayaana waa laba qof oo ishor jooga wax baahiya ma jirin laakiin markii warbaahintu ay timid bilowgii afartanaadka waxaa loo baahday in afkii uu noqdo af ku habboon tusaale ahaan idaacadda BBC-da oo kaleeto culeysyadii qabsaday waxaa ka mid ahaa afarta jiho aynu iminka wada naqaano oo ah bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfur deegaanada soomaalida isku ereyo looguma wada adeegsan jirin marka dadka qaarkood qorax ka soo bax bay yiraahdaan qaarkood qorax u dhac bay yaqaanaan qoraxsin bay dadka qaar yiraahdaan bari iyo bogox bay dadka qaar yiraahdaan waqooyiga in badan qibladii un bay dhihi jirtay dadka qaarkood kor iyo hoos bay dhahaan dadka qaarkood muxuu guban iyo oogay dhahaan ama guban iyo hawd bay dhahaan marka waxaa ka muuqata marka deegaan kastaba sibaa loo adeegsan jiray deegaan walbana way isku fahmi jireen laakiin markay idaacad ay wada dhegaysanayaan waa in afartii jiho si loogu wada sheego si ay u wada fahmaan marka waxay noqotay marka saxaafadii marka waa mid xirfadaysan bay u baahan tahay oo aan ahayn midkiisii deegaanka oo keliya aan ahayn waxaa la mid ah waxbarashadii waxaa la mid ah maamulkii way sii xoogaysatay markii af soomaaliga si rasmiya loo qoray dowladda Soomaaliya ay qortay 72 waxay noqotay saxaafadii markii hore hadal haday ahayd adeegsi qoraal baa loo sii baahday oo saxaafadii qorneed baa ku soo biirtay waxaa la mid ah waxa ku soo biiray maamulkii waxaa ku soo biiray waxbarashadii waxaa ku soo biiray hal abuurkii gabayo waa lagu tirin jiray iyo maansooyin laakiin marka waxay noqotay in sheeko la qoro in buug la qoro marka waa in afkii lagu qoray markan dambe ee website-yadu yimaadeen adeegsiga xirfadaysan haddana wuu sii kordhay baahidiisu marka halka aniga waxaan isleeyahay afkii la adeegsanayay baahida loo qabo af soomaaliga xirfadaysan lagu adeegsanayo meelahaasi muxuu ahaa dadka badan ay dhegaysanayaan ama daawanayaan ama akhrisanayaan waa run looma tababarin sababta ugu weyn hoos ugu dhacayna waxa weyn tababar ma helin baahidiina way sii kordhay oo tusaale ahaan muxuu ahaayey 30 sano ka hor hal TV baa af soomaaliga ku hadli jiray hadda meeqa TV baa af soomaaliga ku hadla 30 sano ka hor meeqa idaacadood baa af soomaaliga ku hadli jiray 3 ama 4 bay ahaayeen hadda meeqa ku hadla waxaa laga yaabaa inta ku hadlasha inay yihiin idaacadaha stationada la kaliya taa laga yaabaa inay sodomeeyay ama ka badan noqdaan kuwa kaleeta ee baraha bulshada ka soo galana haba ku sii darin isagoo qoran maxaa soo bixi jiray marka baahidii way korodhay laakiin dadkaasi tababaro ma helin sababtuna waa mid aan tilmaamay iskooladii lagu barayayna iskooladaasi baahidii ma buuxinayaan arrintaasi ma aha arrin ka dhalatay dowladda burburkeedii oo keliya inkii dowladda Soomaaliya ay jirtay 80-aadkii iyo 70-aadkii baahidaasi waxba ay ka qabanaysay laakiin ma dhamaystirnay sababtoo ah macallin af Soomaaliga dhigana looma tababarin manhajkuna bilowbu ahaayay lama baahida dhaliilihiisa lama sixin agab kaleetana looma diyaarin kadibna baahida way sii korodhay marka ana halkan waxaan isleeyahay marka af Soomaaliga hagaagsan ma dhahay laakiin af Soomaaliga xirfadaysan baahidiina way korodhay meelihii lagu tababarayay na intii yareedii hore ee jirtay baa hoos u sii dhacday ciidan boo xil iska saartayna ma jirin siyaabo sahlan baa lagu horumarin karaa waa in mid iskuulada waa in maadada af Soomaaliga marka arinta ka hadlaya kama hadlayo maadooyin kale luqadaha lagu dhiganayo waxaan ka hadlayaa maadada af Soomaaliga waa in manhajkeeda la tayeeyaa ee la hagaajiyaa oo noqda mid baahida
ardayga Soomaaliyeed uu qabo ka turjumaya waa in macalinka loo tababaraa inuu maadadaas ubadka bari karo oo luqad xirfadaysan ardayga qori kara kuna hadli kara uu soo saari karo agabkay u baahnaayeenna waa in la keeno taas waa iskuulada meelaha kale oo xoojin kara waxa weeyaan tababarada qofkan waa afkiisii hooyo qodobada qaarkood in lagu baraarujiyo buu u baahan yahay tababaro yar yar oo gaagaaban oo maalmo kooban noqon kara goobaha warbaahintu ay samayn karaan hay-adaha afka ka shaqeeya sida akademi goboleedka af Soomaaliga oo kale ay samayn karaan naadiyada dhalinyaradu ay leeyihiin ay samayn karaan tababarada gaagaabanna waxay u sahli lahayd qofka in adeegsigiisa xirfadaysan inuu tayeeyo oo uu kobciyo marka taana aan xisleeyahay waa wax la qaban karo intaas intay ka imanayaan qof walba asagu uu isxil qaadi karaa intuu iska xil saaro inuu isagu adeegsigiisa tayeeyo waxay ku sahlanaan kartaa inuu ku daydo dadka kale tusaalahan buug baad akhriyaysaa buuggaas waxaan shaki lahayn heer qoraal buu leeyahay buuggaas adna inaad qoraalkaagu sida buuggaas oo kale uu noqdo idaacad baad dhegaysataa wariyaal afkooda u tayaysan yahay baa ku jira inaad iyagana ku dayashadaas marka intaad u fiirsato aad ku dayato dadaalka qofku uu samayn kara oo isagu inuu u fiirsado ku daydo kadibna isku layliyo uu adeegsado taasna wuu yeeli karaa marka taa af Soomaaliga xirfadaysan saas ayaa sare loogu qaadi karaa waana arrin loo baahan yahay taana aan intaa kaga baxo su'aasha kale waxay leedahay suugaanta sida gabayga sheekooyinka qoran iyo waxay lamid yihiin afguriga barwaanigu uu ka mid yahay af barwaanigu dabcan qoraallo wuu leeyahay oo isagu dabcan maadaama uu sawaaxili uu yahay af sawaaxiligana la qoray qoraallo hore oo xilliyo horeana wuu leeyahay laakiin markii loo tago waxay ku xidhan tahay waxyaabaha qaarkood tusaale ahaan tirada dadka ku hadla meeqay dhan yihiin marka arrintaas waxay u baahan tahay marka in afkii hooyo ee dadka ku wada hadlayeen uu noqdo way u sahlan tahay laakiin in lagu soo saaro qoraallo waxoogaa kharash baa gelaya awood cilmina way u baahan tahay taasi waxay keenaysaa marka tusaale ahaan qofka buugga qora af barwaani markuu ku qoro waxa akhrisan kara oo keliya inta af barwaaniga taqaan laakiin qofka buugga qora oo afka dhexe oo af maxaatiriga ah ku qora waxa akhrisan kara inta af Soomaaliga ku hadasho oo dhan qofka qora buug oo af Sawaaxili ku qora waxa akhrisan kara inta af Sawaaxiliga ku hadasho oo dhan marka taas waxay keenaysaa luqadahan ama lahjadahan dadka ku hadlaa maadaama tira ahaan ay kooban yihiin in aan dadkii yaqaan xataa ayna waxba ku qorin oo buug ayna ku qorin tusaale ahaan adeegsigoodii kale uu ku jiro ayagoo u eegaya qofkan markuu buugga qoro imise qof baa akhrisan doonta waa tira yar marka kharashna wuu gelaya dabcan waxaan ognahay kaleetaba in af Soomaaliga guud ee lagu hadlo buugaagta lagu qoro dadka akhristaa tira ahaan mar walba inay yar yihiin oo iminka buugga la qoro waxaa laga yaabaa tirada laga daabacaa inay 2,000 hadday noqoto inay muddo u yaalaba dad badan oo iibsada inuuna hore u helin oo taasi ay keento xataa kharashkii lagu daabacay in qofka ay noqoto culays ay ku noqoto marka halkaas qoraallo yar yar iyo waxyaabo yar yar way jiri karaan laakiin qoraallo waaweyn inay kusoo baxaan markii la eego culayska caqliga gelaya iyo hantida gelaysa iyo hadhow dadka ka faa'iideysanaya darteed ma jirayso laakiin haddii la helo masalan maamuladii dawladuhu ay iska xil saaraan waxaa lagu soo saari karaa waxyaabo yar yar oo qaali ahayn oo ubadka afka hooyo uu ahaa si afkoodaas iyagana loo kobciyo muxuu ahaaye baahidoodaasna wax looga qabto in loogu qoro marka waa baahi jirta dabcan laakiin waxaa ka xoog weyn markii la joogaba marka ka xoog weyn waxaan ujeedaa tirada dadka ku hadla tusaale ahaan hadda mayga oo kale jira mayga oo dad badan ay ku hadlaan oo saddexda gobol sheegina Shabeellaha Hoose iyo Bakool iyo ilaa Jubbada Dhexe xataa meelo kamid ah laga hadlayo haddana maca dalika ma haystaan ubadkoodii dugsiga hoose dhiganayay ama dugsiga dhexe dhiganayay waxyaabo lahjadoodaasi mayga sare u soo qaaday ma haystaan iyagoo tira ahaan badan dabcan marka waxaan anu isleeyahay waa baahiyaha jira ee u baahan afguriyada in la xoojiyo dawladaha iyo maamuladu waa inay iska xil saaraan afafkaasi in muxuu ahaaye dabcan ma noqonayaan kuwa u dhigma luqadda dhexe marka laga hadlo adeegsiga iyo laakiin mid walbaba baahidiisa waa in wax laga qabtaa taasi waxay u fiican tahay dadka iyo bulshada iyo wada noolaanshaha iyo
aqoonta iyo dhaqanka uu afkaasi xambaarsan yahay way isdhamaystirayaan saan sheegnay marka taasna intaasaan ka dhihi lahaa waxa qorshe ah oo dejisan ma u samayseen adeegsiga tolmoon ee af soomaaliga dabcan afafku waxay ka mid yihiin waxyaabaha ay bulshada lihi ay wax ka qabato adeegsiga tolmoonna waa adeegsigaas xirfadaysan aynu hadda sheegaynay way jiraan in dad kooban ama hay-ado kooban ay iska xil saaraan tusaale ahaan akademiya goboleedka af soomaaliga oo kaleeto tababaray qabataa dadka af soomaaliga adeegsada ama wax ku qoraya ama saxaafadda ama macallimiinta ayay tababaro u qabataa laakiin tababaradaasi marka loo eego iyo baahida jirta si kasta akademiya goboleedka u dadaasho laakiin baahidaa ka tan badan waxaa la mida naadiyadan akhriska iyo qoraalka ee dhalinyaradu ay leeyihiin iyaguna tababaro ayay sameeyaan tababaro ha qabtaan laakiin haddana baahida jirta ayaa ka xoog badan marka anigu aan isleeyahay tababaro iyo dadaallo way jiraan laakiin tababaradaas iyo dadaaladaasi baahida aad uga xoog badan oo tusaale ahaan haddaan soo qaato 2012kii waxaa shirkii aqoon isweydaarsigii la socday afartan guuradii qoraalka af soomaaliga far soomaaliga waxaa lagu qabtay Djibouti baahidii la istusay waxay ahayd arrintan aad sheegin waxay ka jirtaa waxay ka jirtaa ilaa Djibouti ilaa Ethiopia ilaa Kenya ilaa qurbaha ilaa Soomaaliga intoo dhanba way ka jirtaa marka akademiyada wixii loo sameeyay waxay marka maadaama dadaalada baahida badan ay jirto ugu yaraan in dadaalkii meelo laga qabto oo marka waa dadaallo bilow ah runtii xaaladii la soo marayna ay keenaysay marka hore inaan laga sii fikirin laakiin baahida jirta ka xoog badan dadaallo bilow ahina way jiraan su'aalaha kaleeto waxaa ka mid ah inta haddaan kaga baxo waxaa la yidhi dad badan waxay qabaan in af soomaaligu yahay af carabi isbedel badan oo ku dhacay af carabiga isbedel oo ku dhacay maxaa ka jira af soomaaliga af carabigu saameyn badan bay isku leeyihiin laakiin markii cilmi ahaan loo baadho af soomaaliguna waa afkaar ah af carabiguna waa afkaar ah laakiin waxay ku wada abtirsadaan afafka afraasheetigay ku wada abtirsadaan marka meel inay kasoo wada farcameen bay u eg tahay sidaa darteed ereye ay wadaagaan way jiraan waxaa kaloo jirta gaar ahaan carabigii koonfurta ee yaman iyo meelaha looga hadlayay iyo af soomaaliga waxyaabo badan oo ka dhaxaynayaana way jiraan waxaa kaloo jira isirka ay kasoo wada jeedaan kasokow soomaalidu waa dad muslimiina 100% diinta islaamkana waxay kusoo degtay af carabi marka quraanku wuxuu ku qoran yahay af carabi axaadiista nebiguna waxaa nusuustaas waxay ku qoran yihiin af carabi kutubada diinta islaamkuna waxay ku qoran yihiin af carabi sidaa darteed markii la eego af carabigaasi wuxuu saameyn xoog leh ku yeeshay af soomaaliga waxaa laga yaabaa ereyadu 30% ama ka badan in asalkoodu uu carabi kasoo jeedo marka waxaa la yidhahdaa af soomaaligu carabiga aad buu ugu saamoobay laba sababood dartood midka hore ee isirka ay wadaagaan ah iyo midka kaleeto ee ah oo way wada dhaxleen iyo midka ah inuu af carabigu saameeyey sababta u saameeyey waa deris sababta u saameeyey waa xiriir ganacsi oo ka dhexeeyey xiriir taariikheed oo soo jireen oo ka dhexeeyey juqraafi ahaan oo mandiqadan gacanka cadmeed ay u dhaxaysay iyo badda cas waa dhul muxuu ahaay israacsan oo isu furan diinta islaamka luqadda carabiga oo ballaarnayd marka saa darteed waxay ahayd haddii dib loogu yar noqdo soomaalida afka carabigu afkoodii labaad buu ahaa afkay wax ku qoraanna wuu ahaa deegaano af carabigu kaalinta uu ku lahaa uu ahaa meelaha suuqa looga wada hadlana way jirtay oo tusaale ahaan saylac oo kaleeto waxaa lagaga hadli jiray af carabiga uu ahaa af soomaalina dabcan wuu laakiin af carabigu waa afka dadka u dhaxeeyay qarnigii 12aad oo kale sida mu'arriqiintu ay sheegayaan badmareenada iyo markay yimaadaan afafka dadka kale ay kula tacaamulayso Soomaaliya af carabigu ahaa laakiin markuu isticmaalku yimid af carabiga kaalintiisa waxa qaatay afka isticmaalka oo Ingiriis ama Talyaani ama Faransiis ah baa qaatay tusaale waxaad arkaysaa madaxdii gobonimada Soomaalidu markay dadka Soomaalida u khudbaynayaan qaarkood inay af carabi ay ku hadli jireen markii dambe af Soomaaliga la qorayna kaalin uu af carabigu u lahaa iyaduna ay ka mid tahay tusaale maxkamadaha wax lagu qori jiray oo kaleeto waxaa laga yaabaa dukumeentiyadii maxkamadaha marka dib loogu laabto ama wax lagu kala iibsaday 70aadkii iyagoo carabi ku qoran in caadi loo arko marka af Soomaaliga iyo af carabigu waa laba af oo kala duwan laakiin af Soomaaligu carabiga wax badan buu la wadaagaa ha noqoto isirkay kasoo wada farcameen ha noqoto amase
af soomaaliga oo af carabiga ku saamoobay isu dhawaanshahooda iyo adeegsiga afka oo ballaarnaa oo soomaalidu adeegsan jirtay iyo diinta islaamka intaasiba marka sida ugu macquulsan waa saas ayaanan isleeyahay waxaa la yidhi waxaa jira ereyo badan oo iskuulka markii lagu dhiganayo afaf kale ah ma afkeenaa faqiir ah maya dabcan afku faqiir maaha laakiin markii ereyo cusub macno cusub loo samaynayo arrin waxaa jirta aan ceeb ahayn oo dadka qaarkood u qaataan ceeb inay tahay in afku wuxuu kasoo qaadan karaa ereyadaas af kale tusaalehaan erey bixinta cilmiga iyo saxaafadda iyo qaarkood waxay noqon karaan ereyo hore oo afka ku jira in dib loo adeegsado qaarkoodna waxay noqon karaan in laga soo qaato ereyo cusub oo tusaalehaan markii sayniska la joogo ereyga science atom matter physics chemistry waa ereyada iyagoo sidoodii ahbaa loo qaatay ceebna ma aha luqado badanna saasay u qaateen ereyada cusub markii la samaynayo luqad kalaa laga soo qaadan karaa laga soo deynsan karaa ereyo hore loo adeegsaday oo soomaali ahaan waa lasoo noolayn karaa laba erey oo laysku kabayna way noqon karaan marka inuu afku faqiir yahay ma aha laakiin noloshu way socotaa noloshu marka ay la socoto baahi baa imanaysa ereyo aan hore loo adeegsan jirin fikrado aan hore u jiri jirin agab aan hore u jiri jirin tusaale ahaan raadiyuhu waa agab inagu soo biiray 80 sano ka hor ma jirin idaacad 80 sano ka hor maynaan aqoonin way inagu soo biirtay marka ereyadii markay yimaadeen maxaan halkeen ka keenaynaa in erey soomaalidu adeegsan jirtay loo bixiyana way dhici kartaa in luqad kale laga soo qaatana way dhici kartaa saa darteed baan ereyga raadiyo usoo qaadanay ereyga idaacadna idaacad raadiyona wuxuu ka yimid ingiriisiga idaacadna waxay ka timid carabiga way soomaaliyoobeen marka waxay ku kala duwan yihiin sida dharkaaga iyo alaabtaad iibsataba waddan kale loogu sameeyey luqadaa kale ereye ay isticmaasho haddii afkani uu qaato uu samaysto sida mobile iyo telefon iyo isagaa iska leh ceebna ma aha afkana ceebku ma aha hodontinimay u keentaa waxaa jira ereye af soomaaliya ka tirsan oo af ingiriisku qaatay sida ereyga waabay ereyga garanuug iyo ereye nooc saas oo kaleeta qaamuuska ingiriiska xoogga leh markaad baadho waa erey af soomaali ah oo af soomaaliga ka yimaadeen af ingiriiska ku jira macnaheedu maaha inuu af ingiriisigu u faqiir yahay af soomaaligii waxaan uu ka soo qaatay laakiin waxa weeyaan luqado waxay ku kala fiican yihiin si ereye kale ay u soo qaataan saa darteed luqadda ingiriiska waxyaabaha hodantinimadeeda waxaa ka mid a inay ereye kale luqadaha kaleeto si cuqdad la-aan ay uga soo qaadato marka af soomaaligu inuu ereye kale ka qaato ingiriisi ama carabi oo erey bixintoodii uu ku adeegsado hodantinimadiisa sii kobcinaysaa ceebna ma aha faqiirtinimona kama turjumayso marka ereyga computer markaan adeegsanayno wuu soomaaliyoobay sida mashiinkaan usoo iibsanayba u soomaaliyoobay ayuu u soomaaliyoobay cuqdad la-aan waa inaan u isticmaalno mobile ereygaas muxuu ahaa telefon radio iyo agabka kaleeto tirada badanba waa inaan cuqdad la-aan u isticmaalno wuu soomaaliyoobay dabcan ereyo hore soomaali iyo meeshay u jireen inaan erey ajnabiya usoo qaadano uma baahnin laakiin marka shaygan uu cusub yahay mararka qaarkoodna erey soomaali asalkiisu kasoo jeedaa loo sameeya marna af soomaaligu ereygaas soo daynsada uuna soomaaliyooba marka faqiirtinimo ma aha waxa weeyaan waxay ka mid tahay horumarka afka inuu ereyada si sahla ku qaadan karo uuna si sahla u soomaaliyeyn karo marka taasna waa intaas su-aasha kaleeto ugu dambaysa waxay leedahay dastuurka qaranka ee Soomaaliya ku meel gaarka ah marka uu ka hadlayo afafka rasmiga ah waxa uu leeyahay afka rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa af Soomaaliga kadibna wuxuu qows gelinayaa maay iyo maxaatiri su-aasheedu waxay tahay af Soomaaliga maay iyo maxaatiri oo kaliya miyaa lahjadaha kale afaf kale may galaan oo sidaa miyaa looga tagay mise waa su-aal weyn oo meesha ku jirta waxayna qayb ka tahay dood hadda sii furmaysa waxa weeyaan saan tilmaamay af Soomaaliga lahjadihiisa lahjada ugu weyn waa lahjada maxaatiri afkii dhaxayna noqotay dabcan lahjada kale oo badnida dadka ku hadla marka loo eego deegaanka lagaga hadlo soo raacda waa lahjadaha mayga la isku yiraahdo iyagana lahjadaha kale soo raacaya waa lahjadaha kale ee digilka marka waxa ku jirta arrintan af Soomaaliga marka waa afkii rasmiga ahaa ee koowaad af Carabiguna waa afkii rasmiga ahaa ee labaad afkii labaad af Soomaaliga marka waxa la geliyay bayna qowsayn maay iyo maxaatiri lahjado kale way jiraan arrintan ah saad u tilmaantay su-aasha dad aqoon-yahano Soomaaliyeed oo ka hadlay baa jira oo leh arrintani haddii si sax ah loo hadlayo
waxay ahayd in la yidhaahdo af soomaaligu waa afka rasmiga ah cilmigaa faahfaahinaya lahjadihiisa kala duwan looma baahna in la sheego haddii la rabo in lahjadaha la taxana in lahjadihii oo dhan lasoo wadageliyay ahayd laakiin waxaa maxaa tiri iyo may keliya loo soo qaatay intii kale maxaa looga tegey waxay ka turjumaysay xaaladii siyaasadeed ee uu dalku marayay iyo dagaaladii iyo colaadihii sokeeye ee dhacay iyo dib u heshiisiintii lagu jiray marka dib u heshiisiintu waxay keenaysaa cid walba waxay tabanaysaa wixii laga qaban karo in wax laga qabto marka waa nooc dib u heshiisiin ku yimid buu ahaayo oo siyaasadii keentay ee cilmi aan ahayn oo siyaasaduna ay ahayd in digli mirifle dadkii ugu badan yihiin ee afka mayga ku hadla muxuu ahaa waxyaabo badan ay tabanayeen baa ku jirtay marka way ku adkaysteen maadaama ku adkaysteen saasun baa loo soo geliyay marka laakiin lahjadihii marka laakiin waxaa ku furmay buuq kaleeto oo dhahaya lahjadihii kale maxaa looga tegay tusaale ahaan hadda waxaa laga yaabaa maamul goboleedka koonfur galbeed dadka degan markii la yidhaahdo may ha ku wada hadlaan waxaa dareen uu ka jiraa isa soo taraya dadkii ku hadlayay af digilka markii koonfur galbeed laga digilku wuxuu ka noqonayaa qayb weyn waxaa soo tarayay lahjadihii kaleeto dadkii ku hadlayay marka xaaladaas xaalad siyaasadeed baa keentay waana nooc dib u heshiisiin waxaa jira maqaal uu qoray professor cabdalla cumar mansuur shir ka dhacay Sweden haddaanan khaldanayn Sweden inuu ahaa waan filaya haddii kale Finland inay Sweden ahayd baan u malaynayaa marka maqaal uu ka qoray baa jiro doodaas hadda saan u sheegayno su-aasha adiga aad sheegaysaa oo qodobka dastuurku muxuu u sameeyey uu ku tilmaamayo maadaama siyaasad ahaan tanaasulaad iyo waxyaabo lagu heshiiyo waa inay jiraan laakiin dastuur ahaan qaabka loo qoro inayna qaabkaasi ku habboonayn ayuu nuxurkiisa ku keenaya laakiin maqaalkaas qofkii danaynaya inuu sii akhristo ayaa fiican af ingiriis buu ku qoran yahan u malaynaya dabcan dhowr sano ka hor baan akhriyay ma xasuusto iminka laakiin af ingiriis buu ku qornaa baan u malaynaya shir halkaasuu ka jeediyey dabadeedna xarun wadamada Sweden in ahayd aan u malaynaya ayaa faafisay boggeeda website-ka ku faafisay boggeyga facebooka ayaan soo gelin doonaa isagoo linkigiisa qofkii rabaa si uu sii raaco laakiin calaa kulli xaal waa doodaas mar kasta oo dhanka dib u heshiisiinta loo sii dhowaado doodana way sii yaraan doontaa iyadaa iska degi doonta oo biyo dhigan doonta inta kaleete ee siyaasad ahaan dib u heshiisiintu ay socoto doodaani way jiri doontaa in laysku dulqaato ayaa lagu qasbanaan doonaa mar walbaba su-aalihii marka intaasay ku egyihiin marka saaxiibayaal dadkiina daawanayana aad iyo aad baad u mahadsantihiin qolooyinka soo qaban qaabiyey hayaan forum iyo ustaad cabdiwahaab iyo saaxiibadiisa kaleetana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa saacaddaas aan wada joognay horta waad ku mahadsantihiin saad igu dulqaadateen oo anigu aan waqtiga inta badan qaatay oon anigu hadlay ama su-aalihiin ha noqdaan ama hadalkan soo jeedinayay laakiin waxaan rajaynaynaa inaynu kala faa'iidaysanay aan mar walba xusuusnaana afkeennu waa af soomaaligu waa afkeennii hooyo wuxuu ka mid yahay tiirarka ummadnimada soomaaliyeed ay ku dhisan tahay marka qof walbaba inuu xoojiyo siduu adeegsigiisa uu u tayayn lahaa uu iska xil saaro hay-adaha ummadda ka dhexeeya ee waxbarashada iyo maamulka iyo wax la midina inay arrintaasi iska xil saaraan ayaa loo baahan yahay aad iyo aadna waa u mahadsantihiin ramadaan kariim aafada covid-19na ilaahayna hareer mariyo bisha ramadaanna ajarkeeda iyo xasanaadkeeda iyo dembi dhaafkeeda iyo kuwii naarta lagu xiray ilaahay naga dhigo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh